Cabdi Boker. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مدة صوماليد ملك سيجوكتان وأنا قاعد بقرأ وحان موضوع كسو قادنينا مدن مدحوين حسن شيخ محمود سدح عرين ونجعلنا لهم إنه وقضي مدحوين إسا كهري مدن محمد عبد الله فرماجو سديد عرينا أوريد وقضي أما كسو كوبي قريي أما كسو من قوري سارة ده لحنا وحان كرجينينا إنه سن كسو من قورنين أما كسو كوبي قرينين haddaan ku hormarno dhanka wanaaga ila wanaaga lagu hormaraaye waxaan rajeynaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu madaxweynihiisa ka horeeyay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ka soo min guuriyo ama ka soo koobi gareeyo saddex arrin oo muhiim ah. Number 1 ha ka soo min guuriyo madaxweyne farmaajo inuusan madaxweyne farmaajo ahayn madaxweyne ilmihiisa iyo qoyskiisa farqa ku wata. maxaa madaxweyne farmaajo lama arkin wiilkiisa iyo gabadhiisa oo sida dambiiladii farqa ku wata oo dal iyo dibad saa u daba ordaya lagama arkin. sidaa daraadeed waa arrin wanaagsane ha uga daydo madaxweyne isaga ka horeeyay haddaan aysan qiiro gelinaynin ereyadii qiimaha lahaa ee kasoo yeeray madaxweynaha Kenya uu yiri aniga ayaa inta aan siyaasadda ku jiro qoyskayga iyo ilmahayga ma arkaysaa. marka madaxweyne kale oo shisheeye ku daya dhihi mayno waxaan leenahay madaxweyne ka horeeyay madaxweyne xasanow bal horta ku dayo. Number 1 oo taarinta uga dayo. Number 2 waxaan leenahay uga dayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ma ahayn madaxweyne qabuuraha qota ma ahayn. marka adaa ku suntan madaxweynaha qabuuraha qotee bal inta waxa ka waantoodo iska daysid madaxweyne adiga ka horeeyay bal arinta uga dayo. arinta saddexaad ayadana muhiimka waxa weeye waxa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uga dayataa inuusan ahayn nin dhulalka dowladda inta marasta ka kiciya oo qashanka ku quba malaayiin ka siista ganacsato ma ahayn. marka fadlan uga dayo wanaaga madaxweyne adiga ka horeeyay maxamed cabdullaahi farmaajo uga dayo oo waxaa noqotaa madaxweyne aan marastii u ilaalin lahaa inta barakiciya hanti dowladeed waaye oo dowladda u baahan dhaha ka bacdina ganacsato malaayiin ka siista ha noqonin. oo waxaa uga dayataa madaxweyne adiga ka horeeyay mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. sida muuqata laakiin waxaad ka soo koobi garaynaysaa oo kaliya waxyaalaha xun ama dhaqamadii xun oo isaga iyo kooxdiisa ay lahaayeen. waxaan marka hadda galaynaa sideedda arrin ee aad already ka soo koobi garaysay. Number 1 waxa ugu muhiimsan waxaad ka soo min guurisay ama copy paste ku samaysay sheeka baraalaydi maxamed cabdullaahi farmaajo oo leeyimid ee ahayd waxaan qabanayaa doorasho qof coda oo wixii ka horeeyay aan la diyaarinin oo lagu raadinayo muddo kororsi sanadii dhowr biloodna lagu helay. adina waxaad is leedahay waa ogtahay inaan waxba la soo qabanin oo wixii ka horreeyay dhan la soo diyaarinin sidiisoo kale ay waxa ku raadinaysaa muddo kororsi. marka xumaantii ayaad ka soo koobi garaysay. waa qodobka koobaad. qodobka labaad waxaad ka soo koobi garaysay in jeebka lagu shubto gudoomiyaha baarlamaanka. shalay waxaa jeebka isaga ugu jiray mudane mursal maantana adiga waxaa jeebka kuugu jira oo madiidan ku ah aadan madoobe oo wax walbaba rubber stamp ku noqda matiin baran kugu dhufta isagoo aan ka hor imaanaynin oo runta aan ku sheegaynin. nasiib darro mana haysano ra'iisul wasaare xaniyale oo dhihi kara sidii khayro uu ugu yiri farmaajo adeero la yeeli maayo muddo kororsi doorasho la aadaya. maxaa yeelay waxaa kaysata nin laa walaa aan xaniya lahayn aan no ku dhihi karin waana waxa dabcan meesha u kaysata. Number 3 ama qodobka saddexaad oo aad ka soo min guuriso waxa waaye ciidan beeleedyo la qorto. farmaajo waxaa lagu xasuustaa inuu ciidamo gada laga keenay iyo ilaa lascaanood laga keenay uu qortay si uu bari muddo kororsiga uu isticmaalo. adigana maanta waxaad qoranaysaa ciidamo jafo hooseedka cali gaaf ah oo u dirsanaya sidiisii oo kale u dirsanaysaa maxay yiraahdaa Eritrea. waana nasiib darrada qodobka saddexaad ee xumaanta ah ee farmaajo kooxdiisa aad ka soo koobi garaysay. qodobka afaraad ka soo gudbay waxa waa ku noqoshada aabaha laga barto sida xukunka xoog iyo dictatornimo loogu haysto. aabahii weyn xukunka dictatornimada duruusteeda bixiya waa afawargi madaxweynaha dalka Eritrea ku noqoshadiisa aan xadka lahayn iyo sida ugu noqonayso. farmaajo ayaa ka soo min guurisay iyo kooxdiisa. waxaad ka soo min guurisay madaxweyne farmaajo qodobka kale ah in saamileyda siyaasadda albaabada laga xirto. nasiib darrada ugu weyn waxa waaye ragga maanta albaabada ka wada xiratay waa ragga shalay kugula jiray midowga musharaxiinta ee ay ahayd inaad albaabada u furto soo dhaweyso ka tala qaadato
aad maaragta dareensiiso inaad madaxweynihii hore uga duwan tahay dhaqankan laakiin nasiib darro albaabadaad ka wada xiratay waxaana isla kala yeeshay inaad aniga maahan cid kale ma jirto one man show ayaa dalkii o dhan ka dhigtay maadaama ra-iisul wasaarihii nijaabka kugu jiro gudoomiyihii baarlamaanka nijaabka kugu jiro siyaasiyiintina mucaaradka ku dheelitiri lahaydna aad albaabada ka xiratay waxaa kaloo kala dartay ereygii caanka ahaa ee farmaajoyi koos caanka ku hayan ahayd cidnan loo joojin maayo adigana maanta waxaan ku leeyahay waad soo koobi garaysa ereygii soo sidiisa ah markaasaad waxaad la soo istaagtay cid loo joojinay ma laha dalka anaa la ii doortay anaa maaragtay darbiyada madaxa la dhacaya waxaad ka soo koobi garaysay qabyaaladii oo shalay haddii farmaajo doorashadii dhan maaragtay qalqal u geliyey arrimihii gado iyo 16 xildhibaan gado hadduu soo jiifo iyo haddii uu soo kacba gada ku waashay maanta adiga waxaad taagan tahay cali gaafba mooye haddii ciidaba noolaato qabyaaladii markaa iyo qurankeediina farmaajo iyo kooxdiisii ayaad ka soo koobi garaysay ugu dambeyn wax ka soo koobi garaysay khilaafka maamulada maxaa yeelay shalay 3 maamul jeebka ugu jiraan 2 maamul banaan ka taagnaayeen adigana sheekadii aad maaragtay aad taagan tahay xumaan kaliya ayaad ka soo koobi garaysay marka sidaa daraadeed 8 qodob aan soo sheegnay xumaanta ka soo koobi garaysay inta iska joojisid bal horta 3 qodob aan sheegnay wanaagiisa aan u qirnay bal uga dayo waxay haray 6 qodob oo aan rajeynayno inaadan farmaajo uga dayanin insha Allah taala marka koobaad waxaan rajeynaynaa in aadan farmaajo uga dayanin siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee aad dood iyo run iyo xaqiiqooyin ama facts aan la isaga difaaci karin in guryaha loogu daato sida farmaajo uu ku sameeyay siyaasiga hogaamiye xisbiga wadajir ee uu dhalinyaro Soomaaliyeed oo ilaalo ahaa oo ku xasuuqay ka bacdina kabaha ku duugay ilaa hadda aan la garanayn meesha lagu aasay walow nasiib darro Abdiraxmaan Cabdishakuur shalay sanad kastaba uu maartay uu baroodiq u sameey jiray laakiin sida hadda adiga uu maatay uu baroodiqdi uu joojiyay ina ahayd inuusan joojinin waxaan ka rajaynaynaa sidoo kale inaadan uga dayanin dagaalkii uu ka dhex riday caasimadda dalka ee dad dhalinyaro ku dhamaaday ee shacab lagu laayay iyo askar intaba ee ummadna ku barakacday waxaan rajaynaynaa adoo xukun raadinaya in aadan Muqdisho xabad ka ridin taana waxaan rajaynaynaa farmaajo iyo kooxdiisa inaadan uga dayin oo calaqal uga roonaato waxaan rajaynaynaa inaan sida farmaajo iyo kooxdiisa aadan qofka ka soo horjeeda al-shabaab uu isticmaalay sida ay sameeyeen oo kale hadii ay lahayd dilkii isku qarxintii la isku qarxiyay xildhibaan aamin Allah u naxariiste qarxi la isku qarxiyay maxay raahdaa macallimo oo ahaa faayinkii ra'iisul wasaare xilliga ka soo horjeeday qarxi la isku qarxiyay maxay raahdaa Cabdicasiis Afrika Allah u naxariiste wariyihii qaranka maartay gungaar barnaamijka daadihin jiray iyo saaxiibkiisii oo markaas ah dabcan taliyaha macnaha raahdaa madaxa radio Muqdisho iyo saaxiibkiisii TV-ga heesa Sharmarke oo ka badbaaday dhaawac xun baa la ka soo gaaray ha uga dayanin fadlan isticmaalka al-shabaab loo isticmaalay cid kasta oo siyaasadaan ka soo horjeeda ayadoo loo marayo connectionska la leeyahay al-shabaab waxaan rajaynaynaa in aadan uga dayanin maxamed cabdullaahi farmaajo dad nool in nolosha lagu waayo oo cadow gacanta loo geliyo sida lagu sameeyo kala qalbi dhagax asigoo ahaa nin maarta u gobonay doona dalkiisa hore u soo dhaawacmay ayna ahayd inaan cadow loo gacan gelin marka kooxda farmaajo waa bar ambaar ah ee ku taale iyo taariikh madoobe taana qof Soomaaliyeed ha u dhiibin cadow taa horta ha uga dayanayda ha uga dayanina qodobka kale in xarumaha dawladda dhexdooda dad lagu dhex waayo oo sida ma ikraan tahliil ku dhacdo kale iyaysan dhicin iyo dad maxay raahdaa laga helo meedadkooda oo si aad loo jir dilay qashan qobyada la soo dhigo ama inta lagala baxo godka jilcow habeenkii badda la soo biicabsiyo habeenkii oo dhan oo la soo jir dilo ka bacdina inta xabada lagu dhufto xabada lagala daalo wadooyinka la soo dhigo ayadoo laga dhigayo in qofkan uu yahay qof ma aragtay badda soo caariday oo meed macnaha badda ay qaado ka bacdina badda soo ama la yiraahdo yaa garanaya isbitaal Madiina sida caadada lagu soo tuuro la dhigo taana ha uga dayanina kula dhax waa saddexan jarjeenay in uga dayato
sideed aad already uga dayatay ama soo koobi garaysay ama soo kasoo minguurisay iyo 6 aan rajeynayno inaadan uga dayin biidn illahi tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.